magacaaga meesha joogto magacaygu waa Cali waxa jooga magaalada Garowe. caaliye garowe joogto meeqa jir baa tahay caaliyo 18. 18 sano Mhm. weligaa ma shukaansateen ma hubtaa Wahuba meeqanina soo shukaansatay يعني xiriir baa ka wada muskuansi caadiya. okay xiriir iyo shukaansi maxay kugu kala duwan adiga Dee shukaansi wada qof uma intiis arkaan lambarada kala qorto isla sheekasta kadib kala dhaca. Xiriirna wax iska socda mafahanti. Oo okay connection aad wada qof ayaa. xiriir ma ku jirta adiga Haa, meeqa nin baad xiriir kula jirtaa saddex. ya Saddex. 3 nin Haa. okay adiga iskuul ma dhigataa weli Aniga may waa ka baxsan kara dhameeyay. sanadkii horaa dhammaysa Mhm. okay nimankaad shukaansatay maxay kala yihiin marka maxay qabtaan Mid waa oday, mid waa doctor, midna wiil yariis oo magaalada jooga. mid waa wiil yariisa يعني wiil caadi magaalada jooga. Midna waa mhm doctor, midna waa halkay kala oday. halkay kala joogaan raggan ku shukaansada Kan doctorka uu maqan yahay maadeer baan nahay. codka hagaaji okay codkaaga Kan hagaaji doctor kan doctorka uu maqan yahay maadeer baan nahay. okay taleefankaaga codka ku dar ama earphone ka bixi afka hagaaji codkaaga Okay, hadda way maqashaa. aha Marka waa ka maxaad dhahday saddexda nin halkay kala joogaan mid doctor waaye adeerkay waaye. mid doctor waaye waa in adeerka aha halkuu joogaa Uu maqan yahay halkuu maqan yahay Canada. Canada aha muxuu kaa rabaa marka xariifkaas Dil maadeer baan nahay waa isbarna Soomaa kadibna dacno waa ka helay isna uu helay. qorshuu muxuu yahay Isaga guur buu rabaa. adigana Anigana of course waa rabaa. adina inuu ku guursado ma rabta adiga ninkaas Yes. aha Okay. okay meeqa sano ku shukaansanaya hadda xariifkaas Wallahi 5 bilood. 5 bilood okay xariifka kalena ninka kalena Midka kale odaygaaba. ha halkuu joogaa Odayga waa yeel wuxuu joogaa meeshii la joogaa. odaygu waa waayeel maxaa ka wadaa waa waayeel يعني waxa wada oday yani mataqaana iska yani waa dadka 38 galay ma fahanti wait nin 40 gale oo waayeel baa u taqaanaa of course maxaa dhacay sababtu waa waayeel laba naagod buu leeyahay muxuu aan waayeel buu leeyahay okay maxaad shukaansanaysaa marka hadduu waayeel yahay aan mushkaansan isaga shukaansan guur buu rabaa laakiin aan mar wadayo isagaa ku rabaa meeqa lacagaad ka cuntay wallahi shilinka ma cunin runta wallahi xaqiiq baa kala leeyahay shilinka ma cuno ka carraaw ma fahantaa marka waayeelka maxaad ka rabtaa marka of course يعني waqtiga kulmi sababta talooyin baa ka rabaa moogta 8 waqtiga moogta qofka talooyin ugu fiican maxaa dhacday waqtigaan ku lumiyaa inta kale talooyin waxyaabo badan ka faa'iida moogta sababta talooyin maxay laga faa'iida talooyin maxay ninka waxaad soo qaado ninka ma rabtaa mustaqbal baarta ma fahanti oo ukaadi ninkan ma rabtaa horta adiga mise ma rabtid odaga no ma rabo aniga maxaad u madaalanaysaa ya maxaad u madaalanaysaa markaad adan rabin dee waqtiga kusii lumanaya sababta maxaa kaas iyo waxaa la yidhi waa ina balan b balan a hadaa leedahay balan b waa ina halataa balan d leedahay yani balan c leedahay okay so xoogaa suuqays hadduu suuqays soo xiro odaga xataa kama daraysa oo ku qabsana maxaa dhacay sababta kaashkana hadii ugu bada kahor naa kale iga raaco waan tahay okay so waxaad leedahay xarfaantan kale haddaan filimkooda fahmi waayo xariifkana aadaa okay xariifka kalena magaalada joogaa waa iska wiil jaamacad dhigta waaye kaas isaga ay jecel oo raaraadinta anu ma rabo isaga laftiisa waa wiil jaamacad dhigtaa waa meeqa jir camal ninkaas 22 sano 21 sano 22 sano khasaara marka 1 senti ma haysto
ما هيستوى خسارة هكا أساكو الربع ها مرة تامر هذه مرة أوكي ما حد وصل كان سنة ساعة هذا نخبي ده ما تقانا أوضاق أديو بودا كور لفتيسي كان كندا جو إساقا بلانسية أو إستجا بلانسية ها هل مر ميوت قل وحبان شرحها يعني ميوت قل هل وحبان دي شيء يعني قفتان موضوع في عم بكرواي وح في عم بكرواي أوكي waxay dhahday balaan baan leeyahay balaan b baa jira balaan c balaan b balaan e hal wax baan ku sheegaya mar kasta oo aad naag shukaansanaysid way taqaanaa haddii aad adigu tagtid ninkay aadayso ugu celinayaa mar kasta oo aad naag shukaansanaysid haddii aad adigu tagtid way taqaanaa ninkay aadayso maxaan ka wadaa naagaha waxay addicted ku yihiin attention waxa la dhaho ama mar kasta inay nin attentionkiisa haystaan waxaa jira hal nin oo iyadu rabto iyo waxaa jirta rag badan oo daalan oo kale iyada raba waxay samaysaa marka ragga iyada rabaa ma dhahayso kuma rabo ma dhahayso waan ku rabaa keliya waxay ku raaxaysanaysaa attentionkooda waqtigeedana way ku luminaysaa si haddii lacala kii ay rabtay uu iyada soy ku dhaho tusaale nool qoftana inoo ah dhammaan cabdi khasaareyaasha ku oyne aniga naagtaan shukaansan jiray 2 isbuuc markaan kala tagnay kadib baa la guursaday ninkaas way taqaanay probably ninkaas qorshuhu ku jiray adiga horta okay so cabdi khasaare kasta u maleeya waxaan sharaxayo inay yihiin sheeko iyo aan isla wareegaalaysano qoftana tusaale kugu filan yes nimanka aysan rabin kuma rabo kuma dhahayso way madadaalinaysaa in allaale intay madadaalinayso haddii xariifka xataa ay iyadu rabto ninka jaanis fiican ay hesho kaasay xataa aadaysaa markasta la soco marka waxay dhahaan caddaanku it's just your turn it's not yours brother adigu ma lihid oo xilligaagun baa la jooga soo xilliga adigu shukaansanaysid u malay naagta adigu keligaa inay kugu kooban tahay xayawaan maskaxdaa ku fadhida okay waxay raadinaysaa option kasta oo adiga kaa fiican sidii ay suuqa uga heli lahayd naasle baan arjanaya qoftan ana tusaale waa qadka fur okay xariifka marka oo koobelaata jirka ku shukaansanaya qorshaad ka leedahay muxuu yahay waa plan le waa adiga waa plan b waa maya ani qorshaha kale waxa way mataqaana sababta wiil wanaagsan wanaag iyo ixtiraam baa kale hadaa muxuu ku siiya qarash ma dhiba horta wax ma bidiba kaas ani of course lacag aan ninku ma doorto wax ku doortaa ragnimadiisa no horta naawkaadi adiga iska dhaaf ninka rabta xariifkan ku xarfaantan adiga ku rabo wax ma soo tuuraan shaafta ma bixiya may ani ma weydiin basoma meeqa camal ay taqaan adiga sanad baa isnaqaanaa marka aniga ma weydiin isagana de waa wiil yariis daacad digta aniga maxaa wax ka weydiiyaa oo ka xishooda raggan kale okay iga dhaaf wiilkan yariiska raggan kale aaway odayga iyo xariifkan kale kan kada jawaabin adeerkii khasab yani marmar waa laga yaabaa laakiin odayga waxba aan ma weydiiyo taleefankaad wadato yaa ku gaday of course aabihii hooyadii soo maa aabbahay hooyada laba nin oo odayana waad shukaansanaysaa de maxaa ka micnaa waa inaa mar walba bilaan leedahay kale kan Canada jooga maxay tahay xariifka jooga garoowe aad u rabi weydo kan Canada jooga aad u rabtaa sababta ayaan wax ka wadaa hadda masalan ba ka soo qaad kan Canada jooga wuu tagay oo wuxuu yiri yani qof calaf baa wax jira calaf waxa la dhaaj jira laga yaabo ani marka daadho hal nin baa ku koobanaya calaf muxuu yahay calaf yani waxa kooda qof kale tii ka dhan soo maaha isha qofka guursan kara infanti calafku muxuu yahay isha calafka yani wiilka hadda Canada jooga soo mooran yani guur ba kaara waxaas kale laga yaabay bari inuu yaad taqaana gabar kale guursado ilaahay gabar kale u qoraa ka soo qaad gabar kale ilaahay u qora aniga booska ka baxay soo marka anam kaliya meel iska soo istaagan akiid ana mustaqbal baaro soo marka ina plan kale leeyahay qof kale isla booska ku wareejin kartaa okay soo waxaad rabtaa xariifaad isla markiiba boos ku wareejisid ha maxaa dhacay okay soo xariifkan Canada jooga inuu ku qaada rabtaa maxaa dhacay maxaa diidaya oo in adeerkii ma rabtaa inuu ku dhoofiyo xariifkaasi
ها qorsheena ay ku jirtaa hadduu yacni masalan guur rabo in halkaa ku guursano oo wadanka oo ilmehena ku dhasano qorshahay ku jirtaa inuu imaado process ku xareeyo oo ku qaado kadib xagga kugu guursado yes ka waran ninkaas hadduu ku waday oo ku dhoofiyo kadibna markaa xagga tagtay aad ka heli weyday maxaad samaynaya oo yacni waad ka heli weyday ma rabtid ninkii waa ka heli waa yacni dookhayga maahaba khasab dee furniin baa dalbanaya waana ka tegayaa ilaa waddankiina waa furiin baad joogay dalbanaysaa waad ka tegaysaa haa oo ninkii waddanku keenay soo maha isagu de hadduu yahana who is care intee qof baa waddanka la keenaa laga tagaa dad dhan baa badda ya doon dhan baa badda looga samraa oo lacag iyo dahab iyo ku jiraan ha marka waxaa leedahay hadduu waddankay geeyo oo xaggay geeyo oo aan isfaham weyno ama aan ka heli waaya ninka waxaan leeyahay fur of course maxaa dhacay sababtoo ah khasab waayaba okay su-aal kale aan ku weydiinayaa information kanaad haysid waxaad ugu dhahday 18 jir baana yaa kuu sheegay information kan halkaad ka keentaa informationkee waxa la sameeyo inaad of course inaad adiga ka heli maya yaa ku programyadan halkaad ka heshaa yaad ku taxan tahay nafteeda ku taxanaa akiid runta sheeg wallahi waa xaqiiq okay so adiga nafsadaadu maad is weydiisaa cid kale lama tashitid cid kale oo aad ku taxanta saaxiib ma lihi ani xitaa saaxiib ma lihi ma fahmaysaa qof xitaa ani lama nafteeda la tashadaa iyo aabahay bas okay laakiin ninkan hadduu axsaan kuu galay oo ku waday haddana haddii aad filinka faham weydo waad ku boodaysaa of course maxaa dhacay axsaankaas iyo waxaasna adaa lagu dhahaa haa okay culayskaagu waa meeqa aniga 65 kilo kg 65 kg okay waxaad ii sharaxdaa ninka aad rabtid dararkiisa lacagta inta uu haysto meesha uu joogo waxaas oo dhan sharax ka warta nin shaqaysta of course ninka hadduu shaqaysan isaga ma isnaqaano ninka hadduusan shaqaysan adee kistaa kuu daran maxaa dhacay beri guur baa imanaye maalintahay waa loo baahan yahay shaqada kow iyo mataqaanaa nin mataqaanaa oo barnaamijka taageeradiina muujiya barnaamijka nin de mataqaanaa shaqaysta oo mataqaanaa reer fiican ka dhashay oo wanaagsan de ixtiraam iyo wanaag aa ka heli sababta beri markaa marwadiisa noqdo waxaa rabaa inaa wanaag iyo ixtiraam ka helo ma rabo buuq iyo problem aniga ma garati ixtiraam iyo wanaag askogeyne ha iyada laftigeeda ixtiraam iyo wanaag waa laftigeeda waaye